howlgalkan oo qaatay in ka badan 20 saacadood waxa uu ahaa mid lagu soo gabagabeynayay weeraro iyo qaraxyo toos ah oo ka dhacay qaar ka mid ah hoteelada iyo goobaha ganacsiga ah ee ku yaala wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen waxaa soo gaaray burbur hantiyadeed iyo dhismaha ku yaala hareeraha wadada Maka al-Mukarrama oo qaarkood dhulka ku darsamay, taasi oo laga dheehan karo inta uu la egyahay qaraxa ugu saameynta badan ee ka dhacay agagarka hoteelka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. ku dhawaad 30 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyadan iyo weeraradan tooska ay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana xarumaha caafimaadka ee ku yaala gudaha caasimadda la geeyay in ka badan 50 qof oo dad shacab ah kuwaasoo xilligan dhaqaatiirta caafimaadku ay daweynayaan. cabdibarre yuusuf jabriil oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii 9aad ee Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay goobta ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa sidan warbaahinta u sheegay. waxaad weydiiseen dadka shacabka maxaa dhintaad weydiiseen inta anigu hadda aan ogahay oo aan xaqiijin karo waxaan anigu ogay ma sheegi karo inta xaqiijin karo 25 dhimasho waa arkay waa ogahay oo ilmihii yaraayo halka hadda laga soo saarayo ku jiro nimanka wax soo weeraray oo meesha soo galay ilaa hadda inta aan meedkooda arkay oo la soo saaray waa 2 nin oo gadaalka damba taala mid saddexaad ma arag mid afraad ma arag taasna waa in dadku ogaada halka waxa ka muuqan waxa inta burburiyay oo 24 saacadood ku dhawaad oo 100 kun oo ciidan loo keenay waxa inta la rafanayay oo xalay 2 saac habeenimo maanta la soo gaaray 6 maqrib la soo gaarsiiyay labada qof oo halka gashaan u jeeday taasuna waxa weeye waxay halka cadeynaysaa taya xumada iyo maaragtay hoggaan xumada dalka ku habsatay iyo khibrad xumada looga faa'iideysan lahaa nimankaas iyagoo nool qaban lahaa oo looga faa'iideysan inaan la sameyn. sidoo kale waxa inoo suura gashay inaan waraysi la yeelano qaar ka mid ah dadka ganacsiga ku lahaa wadada Maka al-Mukarrama ee qasaaraha uu soo gaaray, waxaana ay warbaahinta u sheegeen inta uu la egyahay qasaaraha ay kala kulmeen qaraxaasi. walaalkii aniga xasan cabdi godaal lahaa xalay waqtiga wax dhacay in ilaa hadda meesha waa joogaa aan ehelnahay oo dhinacna aan business ama aan shirkadkana meeshaan dib badan ku gaaray dad badan oo Soomaaliyeed oo walaalaha meeshaan wax ku gaareen alxamdulillah rabbil caalamiin kama shaqeyn karno wax meeshaan ka dhacay $100 kun oo alaab ka badan aan noo tiilay markii ilaahay xukunkiis meeshii ku baabaaday maqribkii mar aha la xiray dukaanka oo shaqaaluhu xireen adiga daba qabsaday oo meesha ku burburay hadda iridii waa taasoo u jeedin waxa ma yaaliin meel ganacsi ka furnaa jiray midna uma eka wax dadu ma nooga dhiman hantidaas le kaliya ku burburtay. weerarkan tooska ahaa iyo qaraxyadan ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu qaatay in ka badan 20 saacadood, waxaana uu noqonayaa soo afjaridda weerarkan kii ugu saacada badnaa ee abid weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho. Umar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.